Arsenal oo go'aan culus ka soo saartay mustaqbalka Odegaard xilli xidigan lala xiriirinayo Barcelona. Kooxo badan oo waaweyn oo Yurub ah ayaa bilaabay inay indhaha ku hayaan Martin Odegaard, kaas oo ah kabtanka kooxda Arsenal. Xilli wararka qaar ay sheegayaan in Barcelona ay doonayso inay dib ugu soo celiso La Liga si ay ugu xoojiso qadkeeda dhexe. Si kastaba ha ahaatee, Arsenal ayaa si adag u cadeysay inaysan qorsheynin inay iibiso kabtankeeda, sida uu qoray website-ka Code Offside. Odegaard wuxuu qayb ka maqnaa xilli ciyaareedkan kooxdiisa sababo la xiriira dhaawac soo gaaray, balse weli waa ciyaaryahan muhiim u ah Arsenal. Warbixinta ayaa sheegtay in haddii uu taam noqdo uu si joogto ah qayb uga noqon doono qorshaha Mikel Arteta, maadaama tababaraha reer Spain uu u arko inuu yahay laf-dhabarta kooxda. Ilo wareedyo ayaa sheegay in Arsenal aysan diyaar u ahayn inay maqasho xitaa dalabyo dhaqaale oo soo jiidasho leh. Arsenal ayaa diiradda saaraysa inay mustaqbalka ku dhisto Odegaard, isla markaana aysan geli doonin wax gorgortan ah oo ku saabsan iibintiisa waqtigan. Odegaard ayaa weli ka mid ah xidigaha ugu waxqabadka badan kooxda Arsenal, wuxuuna sii wadi doonaa hogaaminta kooxda xilli ay u dagaalamayaan hanashada horyaalka Premier League. Maalin wanaagsan saaxiibayaal, meel walba aad nagala socotaan waa mar kale iyo barnaamijkeennii Bandhiga Ciyaaraha oo aan maanta ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ilaahin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran, mahadsanid.